السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا صاحب. runtii maanta waxaan ku hayaa qiso aad iyo aad u cajiiba. runtii qiso aan tabiyana waa qisada ugu xiisaha badan. qiso ay culimadu maaragtay sheegaanna waa qisada ugu fiirsashada badan. waxaa jirtay gabadh mu'minad ah oo qurux badan oo saalixad ah. gabadha nin allaale iyo ninka arkaa quruxdeeda wuu la khushuucaya. waxaa gabadha arkay ninba arkay wuxuu jeclaystay inuu la sheekaysto markaa. gabadhii hadal wuu u furi weeyey. ugu dambeyn ninkii markuu gabadhii hadal u furi weeyey dhankasta uu kala soo wareegay wuxuu go'aansaday inuu xumaan ku sameeyo weliba uu kursado. saa daraaddeed wuxuu helay meesha uu ku kursan lahaa iyo weliba meesha iyadoo joogta. saa daraaddeed ugu dambeyn ninkii gabadhii wuu ku xoog badiyey. wuu iska celisay laakiin wuu ku xoog badiyey. ugu dambeyn markuu ku xoog badiyey gabadhii waxaa ku soo dhacay fikir ah waxaa u dhawaa dab baa u dhawaa. dabeedna waxaa ku soo dhacay fikir ah inay dabka gacanta gashato. dabeedna dabkii ayay gacanta gashatay. dabeedna markuu ninkii xumaantiisa dhameystay ayaa wuxuu ku yiri sababta aad gacantaada u gubtay maxay tahay. dabeedna waxay ku tiri halka adigu xumaan iyo macaan aad isleedahay ka dareen aniga qalbi iyo niyadeydu wuxuu siiyey inaan dabka gacanta gasho si aan xanuun u dareemo dembigaana aanan aakhiro kula qaybsan oo dembigaas kaliya ugu noqdo. tabcan runtii qisadan waa qiso qalbiga dhaqaajinaysa. waxaan jeclahay inaad si share garayso waa mahadsan tahay intaan ka xisaab badan kulmana. assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.